بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسع علم الله تعالى. إخوة الكرام، waxaan halkan ka akhriyeynaa waxa la yiraahdo maktaba shaamila. Maktaba shaamila waa barnaamij ka samaysan elektarooni oo kulminaya kitaabo aad u fara badan. Barnaamijkaasi marka wuxuu la mid yahay barnaamijyada kale oo kombiyuutarada lagu isticmaalo. haddii aan wax ugu laabano qaabka marka aad furaysid ama aad marka ugu horeysa aragtida kombiyuutarka shaamila kicisid si aad ula tacaamulaysid, waxaad tagaysaa meel ka mid ah kombiyuutarkaaga halka ay kugu jirto maktaba shaamila. ashaamila markaad ku dhufatid ka gadaal oo folderkeedu uu ku furmo, waxaad dabadeedna u kacaysaa dhinaceeda, macnaha waxaad ka fiirinaysaa qaybta yar oo ay ku qoran tahay shaamila faqad. ayana dhamal click baa ku dhufanaysaa. intaa markaa dhammaysid kadib wax yar baad ka suganaysaa, waxaa soo kacaysa marka maktaba shaamila sida haddaba hortaada ka muuqata. maktaba shaamila markay soo kacdo waad garan kartaan, waxay u baahan tahay isticmaal iyo qaabkii aad ugu gudbi lahayd oo kitaabadii kale aad ugu sii gudbi lahayd, markaas oo kitaabadii qaar ka mid aad u akhrisan lahayd ama u daalacan lahayd ama u baxsan lahayd, waxyaabaha caynkaas oo kale taa arrimo badan sida wax u gelin lahayd maktaba shaamila iyo sida wax uga saari lahayd intaba. marka maktaba shaamiladan waxay leedahay kor waxaa ka muuqda qaa'imada la yiraahdo shariidatul ciwaan, hoos waxaa ka muuqata shariidatul qawaa'im. shariidada ka hooseysana ay qoraadii maktabada oo mid walba ras gaara macno gaara uu ku dooran yahay. marka waxaa muhiim ah inaad baratid ras walba waxa uu qabto, waxqabadkiisa intuu leegyahay, iyo haddii aad ku dhifatid natiijada ka imaan karta. haddii marka ka bilowno min jambin ilaa jambi waaye, jambigaas midigta haddaan ka bilowno waxaan marka ugu horeysa ugu dhufanaynaa raska la yiraahdo ikhtiyaar kitaab. ikhtiyaar kitaab haddii aan ku dhufano wuxuu nasiinayaa natiijo ah qaa'imo inay noo istaagto. dabcan hadda waan ku dhuftay, qaa'imadaas ayuu noo istaajinayaa halkaa horteena ka muuqata. qaa'imadaana waxay kulminaysaa asraar kala bedelan oo laftarkeedu tacaamulkeedu u baahan yahay macnayaal gaar ah. koonaha waxaa u xigtay ras baa u xiga ama icoonkii aad tiraahdidba, waxaa magaciisa la yiraahdo ikhraaj taqriir bilkutub almawjuuda. jambigiisana waxaa ah majmuucaad oo isna ras kaleeto oo calaamatul ikhtiyaar ay saaran tahay. dhanka bidixdan waxaa kasii xiga ras la yiraahdo tasfiya, dhanka bidixdan weli waxaa kasii xiga ras la yiraahdo saabiq. waan sharxaynaa usoo laabanaynaa mid walba wuxuu qabto. hoostiisa waxaa ku jira qaa'ino macnaha musadala ah oo afka halkaas ay kaaga muuqanaysaa inay halkaa qaa'ino musadala ku jirto, waxayna siinaysaa wadaa'if kala bedelan oo kitaabada magacayaashoodii macnaha majmuucaadka magacayaashoodii ah. halkan hoosteedana waxaa ku jira qaa'imo dheer oo qaa'imatul muruurna dhinaca ku wadata. waxaa waaye waxlaha la yiraahdo majmuucooyinka ku jira meeshaan oo inta majmuuca ku jirta mid walba wuxuu kuu siinayaa magaceeda ayaa kuusoo qoday, risaalo jaamiciya kulli magacooda ayaa kuusoo qormay. hoosteeda in maftuuxa aad marna aad xiri kartid ayaa ka muuqanaya, laakiin waan usoo malaabanayna tacaamulkeeda. jambigaas midigtaa daqdu shajar baa la yiraahdaa. waxaa hoos kaga xiga murabacu nas, jambigeedana waxaa saaran waxa la yiraahdo calaamadii baxdiga oo waxa weeye baxthi can kitaab fil kutubi kullaha. waxaa kusii xiga daqdi oo idhaar oo ikhfaa macluumaat can alkitaab, taasna aan arki doona sharaxaadeeda. bidaaqat alkitaab ayaa ugu dambeysa. haddii marka calaamadan dib waxay ugu laabano koonaha waxaa la yiraahdaa baan niri ikhraaj taqriir bilkutub almawjuuda. waxaa jegsinaysaa dhinaceeda bidixda, waxaana kuusoo baxaya qaa'imo dheer ayaa ku istaagaysa. qaa'imadaas 5 magac ayay ka kooban tahay. magaca xagga koonaha u xiga waa taqriir bilkutub xasba almajmuucaat, waa kitaabkii macnaha waxaa waaye inaad ogaatid iyadoo majmuuca u tartiibsan inaad macnaha maktaba shaamila kutubta ku jirta oo majmuuca u tartiibsan inaad ogaatid intii cadadkoodu yahay, majmuuco walba inta cadad ku jirta iyo magacayaasha mid walba inaad saa uga socotid ayay ku tusinaysaa. haddii aan ku dhufano marka aan rabno inaan ogaano arrintaas, asaga ayaan korkiisa geynaynaa mouska, waxaana ku dhufanaynaa jaanibka dhinaca bidixda ah oo mouska. qadar ayaan sugaynaa, qadarka ka bacdina waxaa noo soo daahiraya qaa'imada wixii ay qaban jirtay oo qaybaha aan kala sheegnay ah. ugu horeyn waxay soo tuuraysaa cadadka maktabada kutubta ku jirta iyo waxa la yiraahdo. markaas ayay haddana waxay bilaabaysaa majmuuco walba in ay sheegto kutubta ku jirta cadadkooda kor ku xusto, hoosna ay ka raaciso mid walba iyo magacayaashooda.
مثلا واتنا هل كان تقرير بالكتب حسب المجموعات بكر كيري وارنت عوانكو اها عدد المجموعات مجموعينكو وحاواي ترسيقودو هل كاك مكتبة شاملة كجرة وسديتن يتدو كتبتو كجرتانا وحاواي عدد الكتب وكن صدح يتبان كن أفر بغل طبان يتدو كتاب موقع معناه أن الكتب من كتب الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة معناه PDF معناه أن الكتاب مرتبط بالنسخة المصورة PDF معناه أن الكتاب من كتب الموقع الرسمي وله نسخة مصورة جاهزة للارتباط به لكن لم يتم ارتباطها في هذه النسخة كتبت اللي يراهدو مجموعة وجوه الرئيسة ومجموعة العقيدة مجموعة العقيدة وحواي كتبت كتيرتا وشن بقول يسجال كتاب markaas ayaa waxaa tirinaya kitaabadii buu ku tirinaya laga bilaabo kow ilaa iyo intii muddo aan ka sii wado ilaa uu ka sii wado intii muddo kitaab walbana wuxuu ka siinayaa macluumaad gaaban ayuu ka siinayaa oo bidaaqada kitaab hawsha ay hadhow noo qaban doontaa kitaabka ninka X kale iyo wuxuu yahay iyo magaciisiisa iyo waxyaabahaas oo kale ayuu ku siinayaa marka waxaan rabnay inaan ka ogaano halkaas وظيفة أي قواتو الرزق دينا عوجو حاجة تقرير بالكتب الموجودة سيدا كلا هدي عن مرة لواتك سين أو بحسب الحروف عن رهنا سيدا كلا ترتيب كم بوكلا بدل يا هذا مجموعات بعنا ترتيب سنة لكن حروف بنو ترتيبنا جنبي كذا وحا نري أو هذا الدوران مجموعات بعلى كورانتاي مجموعات كهدي ودوران يا سيدا هل كان هرتنا وكم وقتها وحاوي مجموعة والعقيدة ومجموعة كلية مثلا ووكل الرئيسة نوحل لي تفاسير ومجموعة علوم القرآن ومجموعة متون الحديث ومجموعة مذول بوا جمع مجموعة نوع عسوا لكن هدي أن تصفية دورنا وحاسوا بحيسة هل كان هرتنا حروف أي إيمانيسة من ألف إلى ياء حرف كان كدورنا وحي كتب كبلابة أو حرف كاس مجعيسة مجع كتاب أو كبلوض أي اسكو حكسنيوي مثلا واحد دورنا نطاء كم حصوت حياة وحلالي وحي كتاب كبلابة حرف كاتال هدي أنا دورنا سيدا كلا جيم وأنواع عاصة كلا توي حرف جيم كبلابني وحي حرف حاء كبلابني هدان حاضر دورنا خاضر هدان دورنا حرف خاضر كبلابني معنا كتاب خاضر كبلابني يسكو حجنا يا سيدا كلا تعرفين سابقا أنا ولمد أنواع عاصة كلا لكن وحوقف في عن إن أتقدر تدو حلي هذا مجموعات التسفية مكتبها قار كم إذا ماشان تسفية أيكو قران تاي وحاكو قران أبجديا مجموعات أبجديا لبدا أسكري أي كاغريان أبجديا تان أيو تالله سيدان هذا تان أيو تالله كليتو من ألف إلى ياء واتهي مركب مجموعة يا نودورنتي مجموعة هوست إذا واحد تالله نري قائمة مسجلة هدي عين نفرق لين جنبي جنبي بيدح ده واحد كل هذا شريطة المرور وحل يرى قائمة شريطة المرور بهاش اللي ترى كل هذا واحد نار كيسا قسمي والباء أو مجموعات كلفتر كذي أيوة مجموعة والبنا مجعدي أيضا أركيسا سيدا هل كان هو سبب وأركيسيد مجموعة والبنا مجعدي مركو اسكو وظيفة قائمة من مسجلة هل كوتشرته إيوه مدان هذا هرتنا كم مقطع أو كتب البرنامج اللي قبلها إلى آخر كلا جار أو مجموعات كاس تضبط سديتني تضبط اللي قدامنا مركو كتب البرنامج هذا قائمة فرناية هل كم مقطع لكن هذا عندما الكليك كلفته ويحرميسا مجموعات كذا way qarsanaysa way arursanaysa hoosteeda ay iglayaan laakiin hadii aan furo aan check siiyo oo macnaha dhamal kaliya ku dhufto waxa ay soo baxaya wixii gudaheeda ku jiray oo ah 87 majmuucooyinka mid kamid ah hadii aan majmuuco walba hoosteeda waxa ku jira kitaabo mutaadida inta doona darsigooda ha noqdo hadda taa ugu koreyso kala 509 baa ku jirta al-aqeeda wa majmuuco al-aqeeda hoosteeda waxa ku jira 519 kitaab 509 كتاب كميد هدي أنا وبعض أنا أخري وان راعن إلى أن كهلا كتاب كانوا قبانا مركانوا هذا كشف كتاب كان تحت راية القرآن وكلاتا أيام وبعض أنا أخرسته كتاب كانت لما الكليك أيام كسينية إلى أو كتاب كي يغفرمه أو هرتي ذا واضح كسون الله طبعا كتاب مركو فرما لفتر كيسة وحيابا كلاتا أيام كسير دلنا يا ودنا حاجة شجر أيو كيرنا يا ودن كات حاجة وحيابا كلاتا أيو كسيرنا يا وحيابا سدن ويجران لكن هذا دنتينو maahan inaan kitaabkan hadda daba galo oo 10 noo soo socda ayay arintaas ku soo laaban doontaa hadii Ilaahay idmo laakiin hadda waxaan nahaynay qaa'imadaas oo rasiska ugu horeeya wadiifadiisa ayaan ku jiray sidoo kale markay tahay marka ay ku furan tahay halka la yiraahdo majmuuco kitaabadeedana ay fara badan yihiin waxa adag inaad la soo dulaabatid oo kitaabada ku ugu damacnaa meesha la yiraahdo majmuucadaas
inaad mar walba aakhirkeeda sii gaartay waa adag tahay marka waxaa kugu dheeraanaysa qaaimatul muruurka ayaa kugu dheeraanaysa haddii majmuuca kuu furan tahay majmuuca kale haddii aan tagana waxaa laga yaabaa inaan sii furo oo ay qaa'imadu sii dheeraato sidaa marka si aan uga hagaagto waxaa laga rabaa inaad ka xirtid majmuucada hadda baash kuu furan majmuucada kuu furan waxaa u xiri kadhaa laba qaab in aad laftarkeeda kor tagtid markaa korkeeda maraysid laba jeer jag siisa dhamal kadhig way soo xirmaysaa daaqadii way furnayd markii hore soo maaratid maftuux ayay ahayd oo haddii la ku waxay calaamad macnaa afka ayay kala haysaa daaqadu laakiin markaan dhamal kadhig siiyo afka ayay isku qabsanaysaa way xirantaa waxaan kaleeto u xiri karaa ayada markay furan tahay ama dhowr majmuuca ay furan yihiin oo kaleeto in aan ku dhufto jaanibka midigta oo daqdu shajar leeyahay daqdu shajar haddii aan ku dhufto wixii xifraayo dhan daaqadii furaayo dhan way xirmayaan daqdu shajar xagga waxaa ka xiga murabbac nas markii aad kitaab baaraysid oo kaleeto ayaa lagu qortaa matalan waxaan baarayaa kitaab la yiraahdo taysiir ayaan baaraya taysiir markii aan saa ugu qoro oo magaciisa aan qoro ayuu soo baxaya kitaabka magacaas taysiir la markaan kitaabkii haddii qoraalka horeba aan ku helo waa hawraarsan waa fiican tahay dee waa dhamaata hawshii laakiin haddii aad qoraalka horeeto ku weydid waxaa ku dhufanaysaa ama way kuu soo bixi waaya say noqoto haddaad qoraalka hore ku weydid waxaa ku dhufanaysaa rasga madaxiisa ah oo magaciisa la yiraahdo baxtan can kitaab fil kutubi kullaha markaan jag siiyana kitaab uu soconaya oo kitaab kaleeto magaca leh ayuu ku dul dhacaya kii aan rabay hadduusan ahayn mar labaad ayaan kusii dhufanaya kii aan rabay hadduusan ahayn mar saddexaad iyo mar afraad iyo waan isaga sii dhufanaya ilaa kitaabkaan rabay aan ka helo markii aan dul joogay kitaabkii aan rabay aan dul maray ayaan haddii aan rabay inaan furto dhamal keliya ku dhufanaya si uu kitaabkaasi iigu furmo nafsal wadiifadii haddii aan soo maray marka arrintaas kadib jambigeedana waxaa saaran waxa la yiraahdo idhaar ikhfaa macluumaat can alkitaab arrintaasna waxay u taallaa hadda kitaab baa inoo dooran majmuuca noo furan majmuucada dhexdeeda kitaab baa nooga dooran kitaabkaas calaamad doorasho waxaad ku garanaysaa kitaabku inuu kuu dooran yahay marka ay fuusho calaamada taxdiidka loo yaqaano ama highlightka markii calaamadaas halkaa kuu fuusho waxaad u baahan tahay kitaabkan majmuucada uu ku jiro inaad magaceeda ogaatid sidoo kaleeto inaad ogaatid kitaabkan cidda iska leh daabacaadda iska leh waxyaabahan caynkaas oo kale ah waxaa ku dhufanaysaa idhaar ikhfaa macluumaat can alkitaab jag markii aan siiyey ayay hoos ka soo baxaysaa qismiga uu ku jiraa kitaabka waa tafaasiir muraqaban aaliyan kitaabka waxaa la yidhahdaa magaciisa taysiir tafsiir mu'alifka iskale ibraahim alqataan kitaabku waa muraqam aaliyan غير موافق للمطبوع مطبوعنا ما وافقسنا macluumaadkaas ayay kaa siinaysaa marka caynkaas oo kitaabka ninka iskale iyo kitaabka cidda maaragtay magaciisa iyo meesha uu ku jiray waxyaabaha noocaas kale haddii aan hadda mid kale kusoo dhifto sidoo kale kan macluumaadkiisa ayuu ii soo saaraya kii horena wuu iga qarnaya macluumaadkiisa hadba midka ii dooran ayuu macluumaadkiisa hoos iga siinaya mar walba midkii aan doorto macluumaadka ku aadan ayaa hoos ka soo baxaysa jambigiisa waxaa saaran waxaa la yidhahda bidaaqatul kitaab waxay noogu imaan doontaa sharaxaad dambeeto oo ay qonaada kor aan ku sharxayna ayay ku jirtaa waxayna jamcinaysaa kitaabka magaciisa kitaabka ku dooran waaye magaciisa oo kaleeto mu'alifka iskale iyo cidda iskale iyo nuskhooyinkiisa iyo waxyaabahaas oo dhan ayayna banaanka soo dhigaysaa oo sida hadda tan u shaqeynaysay si lamid ah ayay u shaqeynaysaa walow way ka isticmaal badan tahay aan gadaal ugu tagi doona inaan isticmaaladeeda ogaan marka hadda waxaan soo akhrinay rasga dhinacaas midigta u xiga waxyaabaha uu qabanaya ayaan soo akhrinay asraarta ku xigtana waanu sii sharxi doonaa min janbin ilaa janbi waan dhaafi doonaa sidoo kale waxaa laga yaabaa wadiifada hadda rasga ka heshay wadiifo lamid ah inaad ka heshid qaa'imatu ma la yiraahdo shariidada la yiraahdo shariid alqawaa'im oo ka koraysa ay qonaadeen haddana shaqadan aan kasoo qabanay oo ikhtiyaar kitaab markii aan dooranaynay laftarkeediina waxay ahayd in qaa'imo noo istaagto qaa'imadii laftarkeeda waxaad ka heli kartaa in aad ka baaratid shaashada meel bannaan meesha bannaan macna meel ka bannaan oo ka mid ah shaashad intaa ku aadan maktabada shaamilada dhexdeeda meel ayna ku dhufatid dhanka midigta ah bidixda dhanka bidixda marka aad ku dhufatidna waxaa ku istaagaysaa qaa'imadii halkaa ka istaagi lahayd oo rasga haddii aan dooranno noo istaagi lahayd laftarkeeda shagta aan siiyay dhanka bidixda hore ayay kasoo istaagaysaa waxayna la mid tahay midda halkaa kasoo istaagaysa waa isku mid marka labada qaab ayaa u kacsan kadhaa marka aad u baahan tahay qaa'imadaas inta loo soo kiciyana waa laba xabo waxaa waaye in aad markaas u baahan tahay kitaab mudaalacasho ah oo aad rabtid kitaab maktabada ku jira inaad daalacatid aad meesha ku ogtahay iyo sidoo kale markii aad rabtid inaad kitaab ka baxtaysid labada arrimood ayaa inta ugu badan loo soo kaciyaa haddii ay arrimo qaradyo kaleeto inay soo kordhaanna waa suurtagal intaasna waxaanu kusoo gaabinaynaa bahalka la yiraahdo waxyaabihii macluumaadkii ay maanta inoo ururisay maktabadeennu ama bahalka la yiraahdo